بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا بالسلام دمان ولا نهي الصوماليات ولا جوتان على سبحانه وتعالى هدونو قدر مانتا وحان هلكي كسي أم قادي دونا basic English grammar. waxaan hor u soo dhiganay dhowr cashar ayaan hor u soo dhiganay. casharkii saddexaad waxa uu ahaa cashirka hadlaya markaasi nouns magacyada ayuu ka hadlaya. magaca laba ayaan u qaybinay, singular noun iyo plural noun ayaan u qaybinay. singular noun waa soo baran, waa magacyada markaasi halka ah iyo sida loo isticmaalo waa soo baran. maanta waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa oo aan baran doonaa in markaasi plural nouns ayaan baran doonaa. plural nouns waa magacyada sida loo jamciyo waaye. magac kisi ahay ama hal ahaa sida loo jamcinaa ayaa waxaa lagu bartaa plural nouns ay waaye. magacyada jamacooda waa plural, waa jamac, nouns magacyada jamacooda. waxaa leeyahay marka when you are talking, markaad ka hadlaysid about wax quseeya two or more people, laba iyo wax ka badan oo dad ah markaad rabto inaad ka hadashid. animals xayawaano markaad rabto inaad ka hadashid. places goobo ama meelo inaad rabto inaad ka hadashid. or things mise shey aad rabto inaad ka hadasho. use oo isticmaal, fadlan u isticmaal plural nouns magac jamac isticmaal. waxaan ogaataa most nouns magacyada ugu badan are made plural waxaa jamac loogu dhigaa by adding ayadoo lagu daraayo s oo keliya la raaciyo. ereyga marka aad rabto inaad jamciso ereyada ugu badan Ingiriiska si loo jamciyo s ayaa la raaciyaa. inta laga raaciyo at the end meesha dhamaadka ereyga ayaa la dhigaa markaasi xarafkaasi s. tusaale waa kana star waa xidig ayuu ahaa. markii la jamcinayo xidigo la dhahayo stars waay, hal s bas baa la raaciyaa. sidoo kale bat waa ul, waxaa laga dhigay jamaceed wuxuu noqonayaa bats ulal. sidoo kale mac waa koob, max koob ay noqotay. fan ayaa liiri waa marwaaxad, fanis waa marwaaxado. kaabis waa koofiye, kaabis waa koofiyo. sidoo kale waxaa leeyahay markaasi word fileka singular iyo pluralka baa nala sii waa kuwana. bird waa shimbir, birds waa shimbira ay noqotay. broom waa xaaqin, brooms waa xaaqin. dhammaan waxaa lagu raacinaa s oo keliya, wax kale ma lagu sameeyo. kama waa gel, kamlis waa geelal. disk waa cawaamiis waa disks miisas waa. doll waa caruusad ama bombalo waa dolls waa caruusada ama bombalo. egg waa ukumo, egg waa ukun, eggs waa ukumo. flower waa ubax, flowers waa ubaxyo. fork waa fargeeto, forks waa fargeetooyin. game waa ciyaar, games ciyaaro. lambi waa nal, lambis waa nalal. nest waxa waa markaasi pool ama meesha guryaha ay dhisato markaasi shimbiraha ay dhistaan waaye. nestis waa buulal waa. ben waa qalin, benis waa halimaan. photo waa markaasi sawir, photos waa sawir. shirti waxa waa markaasi shaati, shirts waa shaati. spoon waa qaado, spoons waa qaadooyin. page-ka xiga waxaa leeyahay some plural nouns magacyada markaasi jamac ee qaarkood end in waxay ku dhamaadaan es ayay ku dhamaadaan oo es ayaa la raaciyaa. goorma es la raaciyaa waa kuwana marka s u dambeeyo gadaalana loogu sheegi doono. goorma la raaciyaa waa kuwana inta lagu sheego. when waxaa la raacinayaa the last letters xarafka ugu dambeeya of singular nouns ee magacaasi kisiga ah r uu yahay. haddii xarafka ugu dambeeya uu yahay labada xaraf ugu dambeeya ch uu yahay ama sh uu yahay ama s uu yahay ama double s uu yahay ama or x uu yahay, haye usually waa inaad ku dartaa badanaaba ad markaas es ay ku dirisaa to form saa ugu dhigtaa plural jamac. marka waxaad arkaysaa erey haddaad aragtaa wiil oo u dambeeyo intaani xaraf uu u dambeeyo, fadlan si gaaban u raaci es si aad jamacda ugu dhigtaa. tusaalooyinka waa kuwana. bas waxaa u dambeeya esaa u dambeeya, si fudud waxaa loo raaci esaa la raaci. sidoo kale glass double s u dambeeya, si fudud waxaa loo raaci es si jamac ay u noqoto. brush waa cadi waa, si markaas ay u noqoto jamac es ayaa la raaci. watch waa saacad waa,
سي هيج أيا ودنبه سي جمع النقطة إي إس أيا للرعي فوكس وضبع إكس ودنبه فوكسس إي إس أيا للرعي سي جمع النقطة وأكوانا مركز إرياس إريا لمده أو بعض بيج وحوا مركز حب وبيج سحبوين دي برانش والله سي هيج ودنبه برانش سلامه فوكس بوكس وحوا مركز وكرتون بوكس وكرتون بوش ومركز وش هو بادين ولي هذا وش باديوين كثير جدا جارج هو كاس كنيسة جارج سوا كنيسة سيج باودمس ديش هو صحن اس اتش اي باودمس وديش الصحن دريس هو در دريس هو مركزي در بعض المركز هذا ساندويتش وحوا مركزي روتي وعنتظر لا دحجليه أما هالنقطة هيلب أما حلوة يوحيابها لمده ساندويتش لي هذا ساندويتش روتي ذا اسمركي بطان ساندويتش اي ليرا ويج وساحرة ويجز وساحروين sidoo kale waxa la yiri sample pronouns magacyada qaar ee jamca hindi in ay ku dhamaado ies qaarkaas ayaa lagu daraa ies ayaa lagu daraa leer qaar sample pronouns magacyada qaar ee la jamcinayo waxa lagu daraa ies ayaa lagu daraa goorma lagu daraa qaybta hoose noogu sheega waxa la nouns magacyada laaksida these kuwaasi are plural jamcu by adding by changing nouns magacyo laaksida these kuwan oo kale are waxa way mid waxa lagu sameeyaa plural jamc by adding ayadoo lagu daraayo by changing ayadoo la bedelayo y ayaa la bedelaya to waxa loo bedelaya ay ayaa la bedelaya an adding sidoo kale kadib waxa raacinaysa es ay raacinaysa inshallah intaas noo fira butterfly ayay ahayd meesha butterfly ayay ahayd y ayaa u dambayso hadii markaasi y ay u dambayso markaasi ereyga y-gaasna uu ka sii dambeeyaa shibana uu ka sii horeeya qasab waxa ku ah in y-gaasi aad tirtaa ka bacdina maxaad ku bedelaysaa ayaad ku bedelaysaa y-dii ayaad ku bedeshay kadibna waxaad sameynaysaa si fudud waxaad u sii raacinaysaa es sidaas oo butterfly ay ahayd butterflies ay noqotay butterfly waa balanbaalis butterflies balanbaalis way canary waxa way markaas waa shimbir way waxa u dambayso way ayaa u dambayso oo ka horeysa markaas shibane oo ar ah ka bacdi sidaas waxay ku noqonaysaa canaries waa shimbirooyin lily waa ubax way waxa u dambayso way ayaa u dambayso oo ka horeysa shibane waxa markaas aan bedeleynaa waydan bedeleynaa ayaa ku bedeleynaa kadib si fudud waxa u raacinayna es waxay noqonaynaa lilias ay noqonaysaa candy waxa way markaas waxa geeda la yiraahdo waa macmacaan waxay noqonaysaa candies macmacaano ama sidoo kale geedaha nanac la yiraahdo waxa la yiri what if kawaran there is hadii a vowel shaqalka before uu ka horeeyo way hadii waydi uu shaqal uu ka horeeyo kawar uusan shibano ka horeeyo in the case taas haday dhacdo ka hore waxa lagu yiri waxaad ku tartaa s ku dar to form saad ugu dhigtaa plural jamc bas saad ugu dhigtaa hadii ereygii oo u dambeeyo way balse wayga uu ka horeeyo shaqal uu ka horeeyo maxaa ku sameeynaa waxa ku sameeynaysaa lagu yiri si fudud s ugu dar waa kana kii waa fure waxa u dambeeyo way balse shaqal ayaa ka hore oo ah waxa saas aan ugu dareynaa markaas s ayaan ku dareynaa waxa noqonaya keys rooyin sidoo kale waxa la yiri doorada la yiraahdo turkey waaya u dambeeyo iyana ka horeeyo marka inaan badan waxay noqonaysaa turkeys sidoo kale geedka tray ereyga la yiraahdo tray waxa u dambeeyo way waxaan ka horeeyo shaqal ayaa ka horeeyo tray waa saxankaas oo inta badan la saaro dhowr shay hal mar la isla dul saaro ayaa waxa la yiraahdaa tray la yiraahdaa jamciisa marka waxa noqonaa trays ay noqonaa ereydan badan ayna loo taa waxa la yiraahdaa chimney waa shoolad ama dhuunta markaasi furnooyinka ama dabka dhuunta dabka qaado ayaa chimneys la yiraahdaa shoolad chimneys shooladooyin cowboy aanolo ama cowboys aanolo yaal waa day waxa waa markaasi maalin days maalmo donkey waa markaasi dameer waay
donkeys waa dameero, jersey waa fanaanad, jerseys waa fanaanado. Kidney waxa waa markaasi waa kilida waaye, kidneys waa kilida, kiliyooyin. Monkey waa markaasi daanyeero, waa monkeys waa dameero, waa daanyeero. Toy waa bombale, toys waa bombalooyin. Troll waxa waaye markaasi geedkan yiraahdo gaari gacanka, waa troys waa gaari gacan. Valley waxa waa markaasi tog ama waadi, valleys togog. waxa leeyahay markaas haddii soo gudubno if a noun haddii markaasi magaca end in uu ku dhamaado f, haddii magaca uu ku dhamaado f, you often badanaaba change waxa bedeshaa f ta bedel, to waxa u bedeshaa v u bedel. si markaasi an add waxaad si tartiib ah ugu dari kartaa ayaa leeyahay markaasi es ayaad ku dari kartaa. tusaale waa kan waxa leeyahay markaasi singular or plural. ala calf waxa waaye markaasi wheel maxaa u dambeeya xarafkan, waxa u dambeeya ereygan, waxa u dambeeya xarafka la yiraahdo f ayaa u dambeeya. haddii f ay u dambeeyso maxaa lagu yiri f taas horta waxa ka dhigtaa v oo qor lagu yiri. marka koowaad waa inaad v u qortaa haddaad rabtid inaad jamciso ereygan. haddaad rabtid inaad jamciso f tan tir waxaad u bedeshaa v u bedel, ka bacdina es raac, waxay noqonaysaa ka bacdi calves ay noqonaysaa. waa sidoo kale elf waxa waa markaasi waa jinni ama cirfiid. haddii aad rabto ereygaas inaad bedesho f ta bedel, es v u bedel, ka bacdi es raac, oo waxay noqonaysaa elvis waa jinniyo. half waa kala bar, ay noqonaysaa halves. sidoo kale leaf caleen, leaves ay noqonaysaa. dhankan kale shelf waa iska faalo waaye, shellfish waa iska faalooyin. thief waa tuug, thieves waa tuugo. wolf waa yey, wolves waa yey. often badanaa nouns magacyada kuwaasoo end in ku dhamaado f waxa leeyahay just need waxay u baahan oo kaliya s to form markaasi aad ugu dhigto plural jamcad. qaar waxaa jira leeyahay markaasi ku dhamaado f ku dhamaado. haddii markaasi f ay ku dhamaadaan waa in jamcooda aad raacisaa. sidaad jamc ugu dhigtaa waa inaad s raacisaa. macnaha waa gorma, waa markii oo f-ta ay ka horeyso waaye shaqal uu ka horeeyo. hadda ereygan ugu horeeya waxa waa chef, waa chef. chef waa kariyaha ugu wanaagsan ayaa waxa la yiraahdaa chef la yiraahdaa. chefta f u dambayso waxaase ka horeeyo xaraf ah markaasi shaqal ayaa ka horeeyo oo e ah. marka haddii aad rabto inaad jamcisaa uma baahnid in markaasi f-taas aad tirtid oo v aad u bedesho, ee kaliya wax u baahan tahay inaad s aad ku dartaa. waxay noqonaysaa chefs ay noqonaysaa. chief waa markaasi hogaamiye, waa markaasi chiefs waa hogaamiyaal. sidoo kale cliff waa fiinta markaas dhagax weyn, cliffs ay noqonaysaa. sidoo kale ereyga qaybta kale waxaa leeyahay markaasi handkerchief waa safiletiga, handkerchief waa safiletiyo. roof waa saqaf ama laamiyeeri, roofs waa saqafo. shariif waa shariif, waa shariifs ay noqonaysaa markaasi jamceeda. for some words ereyda qaar that kuwaasoo end in ku dhamaada f ku dhamaada the plural jamcooda can be spelled waxaa markaasi loo hingaadi karaa ama loo qori karaa markaasi in two different ways, laba hab waad u qori kartaa. waa kuwaana hadda leeyahay dwarf waxay noqonaysaa markaasi waa scarfo, dwarf waa scarfo. laba mid baa u qori kartaa in ft aad tirtaa sida caadiyan aad soo baranay aad v aad u bedeshaa ka bacdin es aad raacisaa. iyo sidoo kale waxaad kaloo samayn kartaa in si fudud aad s aad u raacisaa. labadaas baa samayn kartaa. hoof sidoo kale waxaa leeyahay markaas waa qoobka isagana si lamid ah laba shay baa u qori kartaa in markaasi ft aad tirto v aad u bedesho ka bacdin es aad raaciso, ama markaasi s si fudud aad u raaciso. scarf marooyinka luqunta lagu xirto iyadana sidoo lamid ah ft intaad tirto v oo bedeli kartaa es waa raaci kartaa, ama s si fudud waa ku raaci kartaa. waxaa leeyahay markaas with some words erey qaar that kuwaasoo end in ku dhamaado fe ayay ku dhamaada, oo xarafka ereyga waxaa u dambeeya liira labada xaraf oo u dambeysa waxa waa fe. you can change waxaad u bedeli kartaa
f waxaad u bedeli kartaa to v ayaad u bedeli kartaa an add waxaadna ku dari kartaa markaasi s ayaad ku dari kartaa waa kuwaana markaa tusaalaha waxaa leeyahay knife waa midi jamceeda maxaa waaye ftaan diraynaa v aan u bedelaynaa kabacdi iyo s aan raacinaa waxaan raacaynaa markaasi tusaalihii hore ayaan raacinaa laakiin tusaalihii hore wuxuu ahaa waa inay fta dambeysa laakiin hadda shaqalaa dambeeyo fta waa ka horeysa nidaamkii hore un baan maraynaa life waa lives wife waa xaas wives waa xaasas bal laakiin waxaad ogaataa you only add waxaad ku daraysaa markaasi add oo keliya ku daraysaa to grief giri markaad qoraysa jamciisa s bisaa ku daraysaa to form a plural saa jamcda uga dhigto waxaad qoraysaa s un keliya ku daraysaa exception isaa la yiraahdaa hadba meel bay ka qabtaan oo markaasi sharciyo u yaalo waa if a noun haddii markaasi magaca endi in uu ku dhammaado maxaa la sameynaa magacii wuxuu ku dhammaadaa you just add waxaad markaasi si tartiib aad ugu dari kartaa s ku dar to form saad uga dhigtaa markaasi plural jamc saa uga dhigtaa s un bas ku dar waxay noqonaysaa markaasi tusaalaha waxay noqonaysaa rhino waa erey la soo gaabiyo waxaa laga soo gaabiy markaasi rhinoceros ayaa laga soo gaabi oo markaas wiil ayaa laga soo gaabi rhinos ayaad dhihi kartaa hadday aad rabtaa sidoo kale inaad soo gaabato oo markaasi s un si fudud u raaxatay kangaroo ayaa jiro markaasi kangaroos ayaa leedahay sidoo kale intoo kale waa kana sidoo kale waxaa jiray hippopotamus geed la yiraahdo oo jeerta la yiraahdo waxaa loo soo gaabi hibo ayaa loo soo gaabi jamceeda waa kana videos s un baa soo zoo waa xadiiqatul xayawaan meesha la yiraahdo ama beerta xayawaanada zoos la yiraahdo jamceeda bad laakiin with some nouns magacyada qaar dad kuwaasoo indi in ku dhamaado you add waxaad ku daraysaa es to form plural saa jamca ugu dhigto waxaa kamid markaas flamingo ayaa kamid flamingo waa markaasi shimbir badeed waaye flamingos waa shimbir badeedooyin waa kuwana erey kale tomato waa yaanyo tomatoes potatoes hero waa markaas heroes haliyooyin waa kana marka with some nouns magacyada qaar dad kuwaasoo indi in ku dhamaado you can add waxaad ku dari kartaa either midka doonta s waad ku dari kartaa or ama es waa ku dari kartaa to form saa ugu dhigta plural jamc mango waa cambo mangoes ama mangoes s waa ku raaci kartaa ama bas labada midaa doonta raaci mosquito waa kaneeca mosquitos aa dhihi kartaa mosquitos aa dhihi kartaa zeros iyo zeros labadaba buffalo waa loogisi buffaloes loogisi waxaa leeyahay markaasi some plural nouns magacyada qaar don't follow ma raacaan the rule sharciga s lagu daraa ma raacaan they iyagu don't end in kuma dhamaada es ma la raaciyo es lama raaciyo es lama raaciyo or ama vs lama raaciyo instead inta laga raacina the way changes form ereyga dhan ayaa isbedelaya noociisa intaasba sharci maraa tusaalaha kale moose waa dooli jamciisa wuxuu noqonaa mice ayuu noqonaa gebigiisa ayaa isbedelaya goose waxa waa markaasi geeda la yiraahdo boolada la yiraahdo waaye waxay noqonaysaa geese ayay noqonaysaa waa kuwaana foot cag ay ahayd feet caga ayay noqonaysaa jildu waa canug jildareena noqotay man waa nin miin niman ox waa dibi oxen waa dibi tooth waa ilik waa teeth waa ilko women waa islaan women waa naago the plural jamaca of the moose markaasi keyboardka miiska lala jeeda that you use at isticmaal through your computerka aad isticmaashay is neither midkoodna maaha mice-na maaha or moose midna maaha some plurals magacyada qaar jamacyada qaar nouns magacyada markaasi jamaca qaar are the same as mid as the singular nouns singularkooda iyo markaasi pluralkooda isma bedelo macnaha waxba ma raacaan waxaa kamid markaasi sheep idaha kamid sheep leh sheep lama dhahayo sheep leh reindeer waxa waa deero inta badan markaasi ku nool America ku nool ayaa reindeer la yiraahdaa reindeer ayadoo ismid fish malay sidoo kale waxa leeyahay bison waa loogisi waa sidoo kale bison waa loogisi ayada sidoo kale ku nool America ku nool there waa deero isku wada you can use hadda isticmaal kara fishes waxaa raaci karta ay lagu yiri es ay raaci karta as a plural jamc of the fish oo raaci when you are talking about markaad ka hadlayso different kinds noocyada kala gedisa of fish and malay all the fishes dhamaan malayaha
of the Pacific Ocean markaad ka hadlaysid waxaa raaci karta EH ayaa ka raaci karta waayahay some nouns magacyada qaar are always mar walba ayagaaba iska jamac ah mar walba oo ma baahna markaasi in la jamciyo waxaa ka mid ah tusaalaha waa kana waxaa ka mid ah geedka la yiraahdo binocularka waa weynaysada ama markaasi geedka xogta soo dhaweeya ama ishaga adiga indhagashiga oo markaasi waxyaabaha fog soo dhaweeyo ayaa waxa la yiraahdaa binocular ayaa la yiraahdaa goggles waxa waa ookiyaalo sidoo kale binoculars waa binsooyin waa isagana genus waaye bents waxa markaasi waa surwaal waasan pajamas baalaha dumarka ay xirtaan oo habeenkii ay ku saxdaan waa shorts surwaal gaabyada ama markaas buumooyinka waa trousers surwaalada sandals kabaha accessories waxa markaas waa sidoo kale waxaa jira sneaker geedka la yiraahdo kabaha bootska ah waaye sidoo kale waxa sleepers waa kabaha dacska waa stocking waxa la yiraahdaa waa sigsanta ayagana dhaadheer waaye marka waxa la another word areykane for spectacles ee loo isticmaalo markaasi ookiyaalaha is glasses waa saas ma u isticmaal kartaa waxa la yiraahdaa markaasi you can make waxa ka dhigata this plural kuwaana jamacooda nouns magacyada marka jamcinay singular markay yihiin by using adoo isticmaalaa pair of ayaa isticmaalaa sidoo ayagoo ah ayaa pair of aad isticmaalaysa ama markaas lamaan waxa dhigi kartaa pair of binocular markaasi laba xabo oo markaasi ookiyaal binocular weynaysa ah pair of spectaculars laba markaasi ookiyaal pair of goggles pairs of jeans pairs of shorts pairs of binoculars saasoo kale isticmaal kartaa cashirkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay qaybta ku xiga waa su'aalo insha Allah inaad soo xalin doontiin ayaan jeclahay. Assalaamu calaykum.